kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaad muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Muuqaalkan waxaa si toos ugu daawanaysaa YouTube-ka channelka Barca 252 iyo page-ka Facebook aan ku leenahay Barcelona Somali Fans. Soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkan share garay labada taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona meel kasta ay joogaan. Xidiga kooxda Barcelona Leo Messi ayaa markii ugu dambeysay si rasmi ah ugu soo laabtay tababarka kooxda Barcelona kadib markii uu qaansaday inuu sii joogi doono kooxda reer Catalonia. Xidiga reer Argentine uu doonayay inuu iskaga tago Barcelona, laakiin jimcihii uu qaansaday inuu sii joogo kooxda xagaagan. Sidaas darteed shabakada Ben Sports ayaa haatan si rasmi u xaqiijisay in Leo Messi oo shalay Isniina uu ku soo laabtay tababarka kooxda koowaad ee Barcelona. Leo Messi ayaa maalintii Axadda garoonka tababarka iska soo maray baaritaanka xanuunka coronavirus COVID-19. sidoo kale wuxuu la kulmay tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman ka hor bilaabashadiisa xilli ciyaareedka cusub. Markii ugu horeysay Leo Messi ayaa shalay Isniina ayaa ka hor xilli ciyaareedka cusub horyaalka La Liga toddobaadka dambe qaatay tababarka buuxda kooxda Barcelona. Kooxda Catalonia ayaa shaaca ka qaaday maaliyadeeda cusub ee saddexaad taasoo ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub. maaliyadan oo midabkeedu yahay casaan khafiif ah iyo cagaar oo ay kooxda Barcelona ku dheeli doonto fasal ciyaareedka 2020 iyo 2021 isla markaan ay farsameysay shirkadda Nike ayaa la soo bandhigay, waxaana soo bandhigistiisa ka qayb qaatay Leo Messi. xidiga maaliyadan cusub soo bandhigay waxaa ka mid ah kabtanka kooxda Barcelona Leo Messi oo dhawaan sheegay inuu doonayo inuu iskaga tago Camp Nou, laakiin ugu dambeyntii xaqiijiyay inuu sii joogi doono fasal ciyaareedkan 2020 iyo 2021. maaliyadan cusub ee saddexaad ayaa taageerayaasha Barcelona baqaarada kooxda ka heli doonaan laga bilaabo 11 bisha 9aad 2020. kooxaha Barcelona iyo Lyon ayaa ku wada heshiiyay saxiixa xidiga reer Holland Memphis Depay, kaasoo muddooyinkii dambe lala xiriirinayay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Barcelona. tababaraha cusub Barcelona ayaa xidigan u arka inuu bedel u noqdo laacibka Luis Suarez, kaasoo laga yaabo inuu xilli ciyaareedkan ka tago kooxda kubadda cagta Barcelona. Suarez ayaa loo saadaalinayaa in xagaagan intuu suuqa liibsiga furan yahay inuu ku biiro kooxda Juventus, waxaana sidaas qortay dasan. kooxaha Barcelona iyo Liverpool ayaa kalsooni ku heshiin doonaan saxiixa xidiga khadka dhexe Georginio Wijnaldum, waxaana sidaas qortay Sports. kooxda Barcelona ayaa ku soo biirtay tartanka ee Liverpool ay ku doonayso saxiixa xidiga khadka dhexe kooxda Bayern Munich Thiago Alcantara, waxaana sidaas qortay Mundo Deportivo. kooxda Barcelona ayaa isku diyaarinaysa in dalabkii ugu dambeeyay ka gudbiso xidiga reer Argentine ee kooxda kubadda cagta Inter Milan Lautaro Martinez, waxaana sidaas qortay Goal.com. gud iyo gunaanadkii barnaamijkeena ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal. muuqaalkan waxaad kala socoteen YouTube-ka channelka Barca 252 iyo page-ka Facebook aan ku leenahay Barcelona Somali Fans. share garay labada taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.